marka uu jirka galo waxa uu soo saaraa calaamad sida hargabka oo kale, danqasho qanjirada jirka iyo murqo xanuun inta u dhaxaysa isbuuc ilaa bil, kadibna waa uu baaba'aa. nooluhu jirka ayuu isku qariyaa asagoo oo aan soo saareen wax calaamad ah. kadib marka uu difaaca jirka ee qofka uu hoos u dhaco ayuu mar kale dib u soo rogaal celiyaa. hadda waxaad heli kartaa talooyin caafimaad. fadlan ka mid noqo saaxiibada Bukaandeeq oo guji subscribe. nagu soo booqo xarunteena ama si aad ballanta dhakhtarka u samaysato soo wac lambarka shaashada kaaga muuqdo. waa caabuq oo sababo noole ku tarma jirkeena. noolahan waxaa laga helaa dunida oo idil. waxa uu jirka bini'aadamka iyo xayawaankaba ku jiri karaa waqti dheer. mararka qaar waxaa suuragal ah in uusan uga bixin si fudud. kuwa uu saameeyo qaar yar oo ka mid ah ayaa soo muujiya calaamadaha xanuunka, maxaa yeelay difaaca jirka ayaa ka hortaga inuu jirka ku fido xanuunku. marka waa muhiim in hooyada uurka leh iyo qof waliba oo difaaca jirkiisu liito si gaar ah loola socdo, sababtoo ah waxa uu keenaa khataro caafimaad iyo xanuuno daba dheeraada. cudurkan waxaa lagu magacaabaa toxoplasmosis parasite-ka ama noolaha kale ku dul nool ee sababana waxaa lagu magacaabaa Toxoplasma gondii. 3 qaab ayuu qofku ku qaadi karaa. 1. cunto ukunta nooluhu ay ku jirto oo uu qofku laqo asagoo aan ka warqabin foodborne. tusaale, qofka oo cuna hilib aan si wanaagsan loo karin ama aan la jeermis dilin oo ukunta nooluhu ay ku jirto. ku cunida raashinka weel aan si wanaagsan loo nadiifin, hilib ceeriin ahna lagu riday. cabida biyo ay ku jirto ukunta noolaha iyo caanaha aan la karkarin unpasteurized milk. 2. dhaqashada mukulaalaha. noolaha ugu caansan ee gudbiya waa mukulaasha, taas oo si fudud ku gudbisa xanuunka. waxa ay ka qaadaa xanuunka cunista dooliga, shimbir ama noole kale oo qaba cudurka. marka mukulaashu saxarada ayay ku soo saartaa ukumaha parasite-ka. saxaradaas ukumuhu ay ku jiraan ayay mukulaashu ku wasaqaysaa carrada, biyaha iyo deegaanka. dadku waxa uu ku qaadaa nadiifinta saxarada mukulaasha ama taabashada carrada ay gaartay saxarada ukumaha cudurku ay ku jiraan, markaana si fudud u laqaan weel ay mukulaashu marisay jeermiska oo aan laga warqabin ama cabis biyaha jeermiska leh. 3. hooyada oo ilmaha uurka ku jira u gudbin karta cudurka. hooyada qaada cudurka ka hor ama inta ay uurka leedahay waxay ugu gudbin kartaa ibida ilmaha uurka ku jira. cudurkuna wuxuu ku keeni karaa uur ku jiraha dhamaystirnaan la'aan xubnaha abuurmaya. waxa kale oo si dadban loogu kala qaadi karaa dhiig ku shubista iyo xubnaha la isu bedelo. khataraha caafimaad ee toxoplasmosis waxa uu keenaa murqo xanuun, qanjir barar, hargab soo noqnoqda, maskax wareer, aragga oo daciifa, mararka qaar fiish indhaha ama indhaha oo gaduuta, qoyaan xubnaha taranka dumarka, xubnaha ilmaha uurka ku jira oo aan si wanaagsan u abuurmin, dhicis ama dhimasho caruurta minka ku jirta. kadib baaris markii la ogaado inuu jiro toxoplasmosis, waxa uu dhakhtarku go'aan ka qaadan doonaa dawada ku habboon bukaanka si loo joojiyo waxyeelada cudurka. waxaa loo isticmaalaa dawooyin kala duwan. kuwa ugu caansan waxaa ka mid ah Sphyromycin, pyrimethamine lagu daray sulfadiazine oo la raaciyo folinic acid si aad uga hortagto inuu ku gudbo cudurka toxoplasmosis ama parasite-ka sababa ee toxoplasmaha. marka aad hilib karinaysid, ku kari heerkul ku wanaagsan ama iska hubi hilibka aad isticmaalaysid in si wanaagsan loo kariyay. mar waliba iska hubi nadaafadda agabka aad isticmaashid, hubi badqabka biyaha. mar waliba oo gacantaadu taabato carrada adiga oo aan jeermis dilin ha adeegsan ama afkaaga ha ku taaban. haddii aad xanaanayso, iska hubi badqabka mukulaasha kula nool.